taas oo nu arkayay inay tahay andaansiya oo sharafteeda meel ka dhac ku ah oo aan sax ahayn oo aan ogahay meesha ka dambaysa amarka ay cidda fulisay iyo waxa ay ka doonayaan halkaa waxaa ka dhacay dagaal security iyo ciidankii waardiinayay ee amarka la soo siiyey xamdooda soo amray halka xabada isku dhaafsaday waxaa dhaawacantay ilaa 3 nin oo ciidankayga oo dhaawacyadooda qaar culus iyo qaar fudud bay leeyihiin anugu waan bad qabaa alxamdulilah rabbi alcaalamiin arrintaas marka waxaan u arkaa arrin la rabo in lagu baabi'iyo jubbaland iyo jiritaankeedii iyo runtii wixii hadda la higsanayey oo ahaa doorasho halkan inay dhacdo isbeddel dhaco waxaan u arkaa jubbaland oo albaabadii naarta lagu furay albaabadeedu way xidhnaayeen axmed madooba maanta albaabadii naarta ku furay albaabadii jaxiimadu ku furay asaga mas-uuliyaddiisa qaadi doona waan la xisaabtami doonaa cidda askartaanaga dhaawacdantay iyo kuwa amarka soo bixiyey ma laga hadhi doono cadaaladday hortegi doonaan arrintaas marka waxaan rabaa inaan u sheego oo ay ogaadaan dadka reer jubbaland guud ahaan iyo gaar ahaanba in aan loo dulqaadan doonin cadaadiska iyo cabburinta lala fiirsanayo dadka musharaxiinta ee runtii ay tahay in la xurmeeyo taariikhda kule waddankan haddana raba inay xilal ka qabtaan runtii arrintan waxaan arkaa arrin sharaf dhac ku ah waxaan leeyahay laga bilaabo maanta jubbaland tii hore ma noqon doonto annaga waxaan ogeyn jubbaland oo ixtiraam leh oo lagu kala dambeeyo laakiin axmed madoobe jubbaland god buu ku riday albaab buu furay asagay u taalla axmed madoobe wadaa ka jawaabi doona maanta waxaad samaysay wiilka eeraboodka joogeed amarka siisay ee aad ku tidhi cabdinaasir seraar boorsidiisa baadh waad ogtahay cabdinaasir seraar boorsidiisa inuu baadhayn waxaa kuu ficina inta aduu meesha imaato inaad boorsadeeda baadho adigoo axmedaa kuu ficnayd boorsadeeda intaad baadho inaad imaato waxaan leeyahay jubbaland albaab baa ku furmay naara albaab jaxiim baa ku furmay idadarrada lagu bilaabay eeraboodka ma adhi doonto ilaa aan ogaanno waxa ka dambeeyey iyo ujeeddada ka dambaysay ma kaadhi doonno xuquuqdaannada taa waa qodobka labaad waxaan leeyahay ciidanka qalabka sida noocyihiisa kala duwan yaan laydan khaldin meeshan rag baa siyaasadda isku haya axmed madoobe wuu fashilmay wuxuu ku fashilmay inuu hanto ciidanka jubbaland iyo odayaasha jubbaland iyo shacabka jubbaland qalbigooda wuxuu doonayaa maranmarsiinyo adeer annaga maranmarsiiyan waan naqaana meesha laga bilaabo meesha maranmarsiiyan laga bilaabo waan naqaanaa waxaan leeyahay ciidan midaad tihiin